السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت السلام كل جينا سوى دندهين ومدى الصوماليات انت مو غيجا يا مقل كيجا تتغانو ومدن يوبوس او ما انت كحد ليو رنتي دباتوين قدام بي لو جرساني مدحدي هراء سوه جامن سي دالك الصوماليا horta madaxdii hore xushmad iyo qiimeyn ay naga mudan yihiin runtii sala socotiin madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo madaxweynihii ka dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud waxay isku dayeen safarkooda ugu horeeyay inay ku aadaan magaalada Kismaayo iyagoo markaas u hambaliyay rabo caleemasaarkii Axmed Madoobe ee hambaliyay ugu socdeen sala socotiin wixii rafaad iyo dib laga mar waa la socotiin oo dhibaato in loo geysto markaas anaga dhan waan wada eedeynay waxaan wada dhahaynay waxay Kenyatta iyo dabadhili fiihiin sida la socotiin madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed wuxuu u dacwooday maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya ayuu dacwooday sigoo waraaqad u qoray markaas oo ku leeyahay uu ka ashtakoonaya dawladda inay kula kacday xushmad darro iyo qashqashaad iyo inuu san waddanka meesha rabo oo mari karin inuu in dhibaato lagu haayo maxkamaddii sare ee dalka wax jawaaba way ka soo bixi diiday haddaba tii koowaad waan ka hadalno Kismaayo aheeday tii labaad waxay aheeday gargaar bini aadamnimo ayay siga iyo xisbiga madasha xisbiga ay ku midaysan yihiin oo markaan fiqiya ku jiray madaxweyne Xasan Sheekh rag waaweyn oo siyaasiyiin ah ku jireen ayay waxay rabeen gurmad inay u fidiyaan dhibaatadii ka dhacday iyo fatahaadii ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan sida la socoteen waxay aheeday shalay taariikhdu markay ku beegnaaday bishii 11aad shaladana aheeday 10keedii waxa dhacday in diyaaradii ay raaci lahaayeen loo diiday oo la dhahay wax aad raacaysid ma jirto laakiin isjiijid dheer kadib waa la fasaxay oo waxay ka tagteen magaalada Beledweyne waajibkooda way soo guteen way soo laabteen haddaba maxaa dhacay waxa dhacday in dib u soo laabtaan magaalada Muqdisho shir jira in ay qabtaan horta Soomaaliya waxa la nimo runta sheegin been baa u qarsanaa lahay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed xalay hadal ayuu ka soo baxay aniga baaritaan ku sameeyay hadalkan runtii waa ka nax runtii laakiin hore waxa loo dhahay dheerega maxaa ka keenana mogta muwaadin dalka soo hogaamiyay oo madaxweyne soo noqday oo maamuus iyo ciso iyo sharaf mudan in maalin kasta la dhaho ma bixi kartid inta ma ka bixi kartid meesha ma aadi kartid in la dhaho horta dastuurka kuma qorro madaxweynaha xalay wuxuu dhahay 3 jeer ayuu dhaartay wuxuuna dhahay haddii ay sharciga ku dhaqmi diidaan kuwii ka soo horeeyay oo aan la dagaalanay oo hogaamiye kooxeedyadii maxaa la sheegay al-shabaab Ethiopiankii kama aysan awood badna u dhahay runtii aniga markaan rogrogay Sheekh Shariif ku saxan yahay xaqada la raabogta ileen si sharci ayuu ku raadiyay oo maxkamaddii sare ee dalka ayuu waraaqad u qoray waraaqadii uu u qoray wax jawaaba way ka sii diiday oo sharcigii waa loo hogaansami diiday oo sharcigii waxba ka qabad diiday hadda muwaadin waxa tahay oo sharaf iyo ciz la tahay waddanka dulmi kuma wado mu hubeesno koox oo ma arkin waddanka qasku wada ma ahan in maalin kasta shaqadii shabaab loogu talagalay ee maalwalba shabaab in la dagaalamo meeshii laga rabay ayay dawladdu waxay la dagaalashan tahay madaxdii hore Xasan Sheekh ka baxay Sheekh Shariif ka baxay fiqi intuu ka hadlay Cabdiraxmaan Cabshukur intuu ka baxay war madaxda dawladda waxa nigula doortay iyo ciziga nigula doortay ma ahan inaad daba gashiin siyaasiyiintii hore ee idinka soo horeeyay ee waddanka soo hogaamiyay ee ciise iyo sharaf ay idinka mudan yihiin بري خير يحس الشيء هدي الحلقة كده كان حشمي لهيني وأنا حشميسين حشمت أي اللي كم مدين وأنا حشميسين شيخ شريف ندتك وفسرها معنا دجال بكو باق دجالكم مباقين نمن كان هدي الشرع جو حكى قبض ديدو أي شرع جوه جالس بالديدان إلا سكت عنايو أي عدي تاس نور عدوا والوقتين سيدي حاج موسى السعودي مركز جوريجيسي لو ورر ربي ومركز نحوق على قاتنا الله هو والله ما عيدنا والله ما
marka nimankan test garaynta iyo tijaabada ay ku hayaan madaxda qaranka ee cisada iyo sharafka ku mudan waa inay joojiyaan anaga marka wixii kaftana iyo qaraaxa ah anigu iska dhaaf xilligan kadib sababtoo waxa waaye waxaan ogaaday Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ayaga maxay ku qaldan yihiin naftooda riski galiyaan rashaal horta ani waa naxaruntii diyaaradii Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ayaa ka degi weysay magaalada Beledweyne markii la dhaho walaa waa naxaas dhahay nimankii nabadda nololahay waxa waaye waa niman waalane haddii bay gantaale ku dhifanayaan idinkoo mas'uuliyiin waaweyn oo inta soo umada oo ma arkin oo isheeg idinku taxan tahay oo inta soo umada taageerayaal leedihiin inaa isdaba gashiin oo haddii la rabo oo la qarxi karo oo haddii la rabo dhibaato la geysan karo waxaas hadda mar waa sameysayna mar labaad ha u laabanina waana salaam kulligiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.